Waxaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka soo degtay diyaarad siday ee cutubyadii ugu horeysay oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu tababaray dalka Eritrea. Ciidamadan ayaa muddo sanad ah ku maqnaa dalka Eritrea oo ay geysay dowladii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana dhowr jeer siyaasiyiinta xilligaas mucaaradka ahaa ay sheegeen in laga dagaalgeliyay ee dalka Itoobiya oo badankood ay dhinteen, balse hadalkaasi been u noqday. Ciidamada maanta laga keenay dalka Eritrea ayaa waxa ay qayb ka noqon doonaan howlgalka ka dhanka ah ee ka socda dalka ee ku aadan ururka Al-Shabaab, iyada oo la geyn doona furimaha dagaalka ee gobolada ka kala socda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligii uu mucaaradka ahaa fagaaro ka sheegay in dhalinyaradii tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea la iibsaday, balse markii uu madaxweyne loo doortay kadib uu 2 jeer u tagay isaga oo sheegay inay nabad qabaan dalkana nabad loogu soo celin doono dhawaan.